shirkanagan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay marka koowaad waxaan u tacsiyeynayaa dadkii ku naf waayay falkii argagixisada ahaa ee saakay uu ku qaaday hotel Agan ee magaalada Kismaayo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaan dadkaas oo isugu jiray dad shacab ah iyo qaar ka mid ah ilaalada siyaasiyiinta gaar ahaan senator Ilyas Bedel Gaboose ilaaladiisi waxaan leeyahay intii ku dhimatay Allah u naxariisto intii dhaawacantayna Allah u boogadhayo waxaan rabaa inaan cambaareeyo dagaalka Axmed Madoobe uu ku qaaday hotelka ay deganaayeen siyaasiyiinta iyo dadka shacabka ah ee magaaladooda Kismaayo nabadda ku joogay ee maxaa la yiraahdaa ayagoo wax dhibaato geysanin uu saakay alseedii ku dhardhaaray dagaal arxan darro ah taasoo tilmaamayso sida Axmed uga go'an tahay inuu dagaal sokeeyo ka dhex dhaliyo dadka ehelka ah ee ku wada nool Jubbaland digniin waxaan rabaa inaan digniin iyo baaq u diro dhammaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Kismaayo waxaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed uga digayaa inay ka qayb noqdaan falalka gurcan ee lagu kala qaybinayo bulshada Soomaaliyeed ee Jubbaland waxaan ugu baaqayaa ciidamada qalabka sida inay ku koobnaadaan shaqadii loo igmaday oo ahayd sugidda amniga qaranka ayna ku milmin arrimaha siyaasadda iyo wixii la mid ah oo aan loo adeegsanin ayagoo ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaranka Soomaaliyeed la shaqeynayay oo Soomaalinimada raadinayo garanayo maxaa la yiraahdaa dadka ku dhaqan Kismaayo iyo Jubbaland inay yihiin dadka uu Soomaali jecel inaanan falal gurcan aan loo adeegsanin waa uga digayaa wixii fal ah ama fal dambiyeed ah oo ka yimaada arintaas ayada ah waxay ku mutaysan karaan maxkamad marka si aad maxkamad u mutaysanin waxa weeye shaqadii lagu igmada kaliya inaad ku ekaatid ee Soomaaliya muxuu ahaa amniga sugidiisa aad ku ekaatid iyo khawaarij la dagaalkooda aad ku ekaatid intaas ayaan ciidamada ugu baaqayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh